المنافقون الجدد ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. علامات المنافقين إذا حدث كذب وإذا تؤمن خان وإذا وعد أخلف مركو شيكين يبين شيء ومركا لا آمنوا آمنات كبحي ومركو بلنقروا بلنك جميع ومن علامات النفاق. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أيضا مسلمين لشيء برلمان لو دوري حلبان باناي برلمان باناي وحوي نبصقد باناي وهي مقريسة وحاناي مقريسة يقولها دحاناي شرعي دجياناي أفكنا وحاليها مسلم باناي وعلامات كمنافقين طبعا محايري وحاات شيغاني سيدية وحاات تهيب اسمالي. المنافقون الجدد مسلم بات شيغانيسا شرعي ديجياتاي مسلم بات شيغانيسا برلماني باتاي مسلم بات شيغانيسا حلبان باتاي مسلم بات شيغانيسا قالوا وحي مسلم جعشا إلي ودك سوقلا مسلم بات هذا جعشا مسلمين وحاس أودمك من علامات النفاق إذا أقل السبب في اليوم إلهنا الله. المنافقون الجدد داوله waxaa laga raadinayaa waa Allah subhanahu wa ta'ala waxa in loo laabto waxaa laga raadinayaa ruuxu xaalkiisa inuu bedelo in Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. المنافقون الجدد sida markaan leenahay maaha ruuxu inuu inta farmashi aado inuu yaalo sharoobada muwaafaqnimadaysi ama kiniiniga oo karaami doolka oo la isaga daweeyo munaafiqiin la waxa la isaga daweynayaa awalan wa qabla kulli shay wa al-inaba روح إلهي سبحانه وتعالى إنه الله أبطه. المنافقون الجدد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد المنافق نمذو أما الشيء اللي يراده النفاق معناه وأوركا قال ويان وأوركا قال معناها wuxuu afka ka sheeganayo iyo wuxuu waxaweyaan uurka ku hayso ama qalbiga uu ku haystaayo way kala duwan yihiin. sidaasaa marka waxaweyaan naafaqa waxaweyaan waa uu munaafaqoobay ama waxaweyaan waxaa kala duwan zaahirkiisa iyo baatinkiisa. sidaasaa marka lagu tilmaamaa marka la tilmaamayo oo lasoo gaabinayo macnaha meesha ruuxa muslimka ama muwaxidka ama uu yahay ruux waxa weeyaan uurkiisa iyo afkiisa iswaafaqsan yihiin oo ay isku meel u jeedaan ayaa markaas waxa weeyaan kani uu cagsigiisa uu yahay. cibaaro kale si kale haddaan u dhigo waa ruux aan muslim ahayn gaal la aan ahayn laakiin zaahirka wuxuu ka raacsan yahay dadka muslimiinta ayagiibuu la hadlayaa ayagiibuu la tukanayaa ayagiibuu koofida cimaamada surweelka intaba macnaha ayagu raacsan yahay laakiin xagga qalbiga iyo xagga iimaanka iyo xagga alla ka cabsiga midna ma raacsana. marka ruuxa macnaha haddii tilmaan yar laga bixiyo sidaas weeyaan. calaamadaha lagu garan karo maxaa kamid ah? calaamadaha lagu garan karo xilligan la joogo waa wax waxaweyaan dadku macnaha ay fahmi karaan laakiin xilligii nabi maxamed sala allahu alayhi waalihi wasalam waxyibaa nabiga loogu sheegayey ay doonayaan inay macnaha wax badan ay ku khayaanaan. masalan dagaalkiibay ka harayaan, masalan nabigay aflagaadaynayaan, masalan saxaabaday caayayaan, masalan waxaan jirin oo magna sadaqadiibay dhaleecaynayaan intaas oo tusaale. laakiin nabiga salawaatullahi rabbi wasalaamu calayhi waa loo waxyoonayay waa loo sheegay. ama alyawm haddee maanta waxa weeyaan wixii uu laga arko mooyaane hadda waxyi noo soo degayahay ma jiraan laakiin waa cunsur muslimiinta ku dhex jira la tukanaya dasiis ah
قرصون إلهي سبحانه وتعالى وكعبري هم العدو فاحذرهم معناها عدو قال الشيء يا وابعيجا iska ilaali aayadadan iyo suuradan ilaahay subxaanahu watacaala uga hadlay ilaahay uu yidhi idaa jaa-aka almunaafiquuna hadday ku yimaadaan kuwa munaafiqiintaas marka dad sidaas ah oo waxa weeyaan uurkooda iyo afkooda iskhilaafsan yahay cadaawadda ay qabaanna gaalada ay ka daran tahay maxaa yeelay gaaladu ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noo sheegay inay gaalada xataa markay dabaqa sare ee naarta ay galaan ayagu ay gelayaan dabaqa ugu hooseeya ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar marka waa dad sidaa khatartooda ay u daran tahay weeyaan waxaad og tahay dadku inay markay xanuunsadaan dhakhtar u tagaan oo ay hubitaan caafimaad ismariyaan ama jeekin waxa la yidhaahdo marka sidee baa qofku isaga hubi karaa munaafiqnimo waa su-aal wanaagsan laakiin allah subxaanahu watacaala wuxuu yidhi bal ilinsaanu calaa nafsihi basiira ruux kasta macnaha naftiisa basiira ugu sugan ruuxu asagaa la rabaa inuu iimaankiisa miisaamo alla kacabsigiisa miisaamo iimaankiisu marka uu hoos dhaco uu dareemo marka uu ziyaado uu dareemo waa wax ruuxu ilaahay subxaanahu watacaala uu ku ilhaamiyo hadduusan naftiisa uusan khiyaanayn masalan markaad qur-aanka aad akrisid safka hore ku dadaashid diinta ilaahay u nusraysid cadowga wadanka soo galay aad wax ka difaacdid muslimiinta khayr aad la jeceshahay inay guulaystaan gaaladu inay jabaan hadda ruux wax badan u dhaqan yihiin marka inaad tahay laakiin markay qalbigaagu ay gasho muslimiintu inay wax gaaraan muslimiinta in la duqeeyo muslimiintu inay baaba'aan muslimiinta magacooda inuu dhumo muslimiintu inay halaagsamaan inaad dhib la doontid hadda markaas waxaa cad in waxa weye shay-un min annifaaq uu ku soo galay markaasna aad ilaahay subxaanahu watacaala tiraada war waa sidee way waa lagu galaye ilaahay subxaanahu watacaala u laabo xilli adagna maanta waaba la marayaaba oo dadku munaafiqnimada aysan dareemayn oo dadku aysan in badan laga yaabo ayagoo dhex taagan inay haddana isku arkaan inay saxan yihiin bal nabigeena maxamed sallallahu alayhi wa alihi wasallam niman la duulayay ayaa waxay yidhaahdeen waxa weeye saxaabadan oo kale ma aanan arag arqaba butuunan wax ka caloolo waaweyn oo markii dagaalka la galo ka fulaysan oo markii la hadlayo ka been badan ilaahay subxaanahu watacaala aayaad buu ka soo dejiyey waa niman saxaabada ay aflagaadeeyeen oo lagu yidhi qul abillahi wa aayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum waa dad saxaaba oo wax ka sheegay maanta diintaa la aflagaadeynaya oo sharciga ilaahay baa la diidaya oo gaaladii baa la soo hagaya oo ruuxu waxa muslimiintu dhib la doonaya oo shareexadii buu dhigaya oo muslimiintu qarxinaya haddana wuxuu isku arkaaba inuu muslim yahay oo waa tukanaya marka mas'ale aad iyo aad u khatara weya ugu dambeynta marka sidee baa munaafiqnimada qofku isaga daweyn karaa wuxuu isaga daweyn karaay ilaahay subxaanahu watacaala daawada uu sheegay inuu isticmaalo sidaa markaan leenahay ma aha ruuxu inuu inta farmashi aado inuu yahdo sharoobada munaafiqnimadaysi ama kiniiniga iyo karaami doolka oo laisaga daweeya munaafiqnimada laa waxaa la isaga daweynayaa awalan wa qabla kulli shay waa alinaaba ruuxu ilaahay subxaanahu watacaala inuu u laabto waxa weye ilaahay subxaanahu watacaala inuu u noqdo inuu yidhahdo tubtu ila allah inuu yidhahdo allahuma inii zalamtu nafsi inuu waxa weye istikfaari istirjaac la yimaado calaamadaha markuu arko nebigu tilmaamay calaamaadka munaafiqiinta idaa xadasa kadaba wa idaa tu'mina khana wa idaa wacada akhlafa markuu sheekaynayu been sheegay oo marka la aaminu aaminaada ka baxay oo markuu ballan galu ballanta jabinaya oo min calaamaati nifaaq inuu yidhahdo marka war waa lagu hayaa ilaahay subxaanahu watacaala u laabo oo ilaahay u toobadkeen oo ilaahay subxaanahu watacaala inuu ku sugo weydiiso oo saxaabadu in badan allahuma inii acuudu bika min annifaaq ilaahay bay ka magangeli jireen marka daawada waxaa laga raadinayaa waa allah subxaanahu watacaala waxa weye in loo laabto waxaa laga raadinaya ruuxu xaalkiisa inuu bedelo ina allaha laa yugayiru ma biqawmin xataa yugayiru ma bianfusihim waxaa laga raadinaya ilahay in badan inuu u toobad keeno waxaa laga raadinaya dunuubtii iyo macaasidii uu galay ilahay inuu ka nadaamoodo ka shallaayo waxaa laga raadinaya inuusan mardam aliqlaac can zambi wa an laa yacuuda inuusan u noqon daawadu marka halkaa weeyaan
in badanna maanta cudurrada la sahalsado oo waxa iyadoo muslimiin la sheegayo baarlamaan loo doodayo xildhibaan baan ahay baarlamaan baan ahay waxa weeye nabad sugid baan ahay waxaan ahay magaraysayo golaha dhexaan ahay sharci dejiyaan ahay afkana waxaa leedahay muslim baan ahay waa calaamaadka munaafiqiinta oo dhab ah maxaa yeelay waxa aad sheeganaysid iyo waxa aad tahayba isma leh muslim baad sheeganaysaa sharci dejiya tahay muslim baad sheeganaysaa baarlamaani baa tahay muslim baad sheeganaysaa xildhibaan baa tahay muslim baad sheeganaysaa gaaladaad jecesha inay wadanka soo galaan muslim baa hadda jecesha muslimiinta waxaas oo dhan marka waa min calaamaati nifaaq in aad la isaga fiiriyo way ilaahayna u laaban